muuqaal aad xasaasi u ah ayaan doonayaa inaan maanta halkan ku soo gudbiyo. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo dhawaan warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in arrintii Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxaysay ee badda marka lagu xaliyay dulqaadka ay Soomaalidu ay leeyihiin. kalsoonida Soomaaliya lagu qabo runtii waxay ku soo aaday iyadoo aan xalinay oo dulqaadka Soomaaliya lagu xaliyaan dhihi karnaa arrintii nagala dhaxaysay Itoobiya. waa dhab dulqaadka Soomaalida ayaa lagu xaliyay arrintii baa la yiri. waa badii Soomaaliya ee Itoobiya ugu qabsatay ayaa waxa lagu xaliyay dulqaadka ay Soomaalidu leeyihiin baa lagu xaliyay. Is that make sense to you? dulqaadka kaliya ma aha iyo xigmadda ay Soomaalidu leedahay ayaa lagu xaliyay kadib markii Itoobiya ay dalkeena nagu qabsatay taasoo la macno ah in shaatigaaga lagu qabsaday oo kuleetiga lagu qabtay oo lagu ceenjiyay kadib dulqaadka iyo xigmadda ay Soomaalidu leedahay ayaa lagu xaliyay buu yiraahdaa taas oo dulqaadka Soomaaliya lagu xaliyaan dhihi karnaa arrintii nagala dhaxaysay Itoobiya. dulqaadka Soomaaliya lagu xaliyay waxa lagu xaliyay maaragtay xigmadda Soomaalida. Axmed Macalin Fiqi ma sheegin heshiiska la galay waxa uu yahay badda Soomaaliya in la diiday in la siiyay Itoobiya contract la galay laakiin hadalkii oo dhan wuxuu ku soo koobaa inay arrintaas xigmad iyo wanaag tahay siyaasaduna aysan ku jirinin in yoodu waa diidmo kuma jirto diidmo buu yiri. in yowmiya ku jirta diblomaasiyadda in yow kuma jirto. heshiiskii intaa ogaal la ekaa ee qodobada tirada badan ay ku jireen oo la doonayay in turxaan bixin iyo analysis laga sameeyo ummadana loo sheego waxa Ankara lagu soo saxiixay. dowladda Soomaaliya ee kaga dhaxbaxday oo kaliya inay arrintaas xigmad iyo dulqaad Soomaaliya markaa lagu dhameeyay. ma jirto wax kale oo turxaan bixin ah oo meesha ka soo baxay. markii aan soo xooriyay aragtida kooxda Xasan Sheekh Maxamuud arrinta badda la xiriirta waxa ii soo baxday markaan si waaqici ah u fiiriyay in nimankan badda Soomaaliya ay go'aansan Itoobiya inay siiyaan isla markaasna ummadana ay jahwareeriyaan in baddiina la bixiyo ummadina la jahwareeriyo oo ay sanbaysa aragba dadkii badda lahaa iyo Itoobiya ayaa meesha ka soo baxday. waxay go'aansadeen ummadda inaan loo sheegin haa iyo maya midna waa la bixiyay iyo lama bixin baddeeni midna looma sheegayo laakiin waxaan loo sheegayaa hadalla kaleeto oo aan haa midna aan ahayn sida xigmad baan mataqaana meesha ka soo baxday sida dulqaadka Soomaalida sida waa la dhameeyay sida inyo kuma jirto iyo hadalla noocayo kaleeta ah oo aan fasiraad toos ah aan marnaba qaadan karin. inta ay meesha joogaan waxay rabaan inay sidaa ku joogaan bay doonayaan. waa badii Soomaaliya annagoo arkayna marka la qaatay isla markaasna ummadii difaaci lahayd la jahwareerinayo ayaynu maanta dhex taaganahay 30 sano kadib waa maalintii uu dhintay Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre. 30 sano ayaa ka soo wareegtay maalinkii uu marxuumkaas u dhintay. dardaarankiisa ugu dambeeyay oo marxuumkaani uu nala hadlay ummadana uu ka hadlay arrinta Itoobiya ayuu wuxuu u sheegay Itoobiya inay doonayso in dhulka Soomaaliya ay qaadato. waxaan dadka Soomaaliya u soo jeedinayaa inay maanta sii gartaan inay gumaysiga arrinta ka sii durugtay xabasho inay gaartay heer ay tiraahdo qof kastoo Soomaaliya hala dilo. waxa weeye ereygii murtiyeedku sheega ahaa ee ugu dambeeyey ee ay ku hadleen dhuuxiisa la dhuuxa waxa weeye xididada ha loo baxsho jiritaanka shacbiga Soomaaliyeed isagaa fidnada Afrika ah. maxaa maanta ku soo aadiyay heshiiska badda Soomaaliya in laga hadlo xilli ay ku aadan tahay maalinka uu dhintay marxuumkan? waxaan aaminsanahay inay tahay qorshe Itoobiya ay ku soo aadisay isla markaasna damiirka ummadda Soomaaliyeed lagu dilayo ayaan aaminsanahay. maaha wax isku soo aaday in wax la sameeyay oo siyaasadaysan ay tahay baan aaminsanahay. waxa Soomaaliya la tusayaa in laga adkaaday oo naga qabsaday. waxaa la tusayaa hadalkii uu horay u nooyay Maxamed Siyaad Barre in laga dhabeeyay baan la tusayaa. hadalkiisa markaad dhageysato waxaad fahmi karaysaa xaaladda maanta taagan iyo wixii uu nagala dardaarmay. haddaba muwaadin adiga ee daawanaya miyaysan ku muuqanin wixii uu nagala hadlay maanta aan dhexda u taaganahay maxaynu qaban karnaa oo su'aashaan dhalinyarada weydiinayo.